السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشر كيني سقالات كو هذا الانجليش. ما انت وحينو كهذا food, drinks, food and drinks in English. Food وعنتو, drinks وعبتان. Food عنتو, drinks عبتان. Speaking practice كو العلنتا كو هذا okay? Learning goals. By the end of this lesson, you can name common foods. By the end of this lesson, you can name common foods. Why not? Why not magacaabi kartaa cuntooyinka guud? Say what you like. Why not sheegtaa waxaad jeceshay? Name common drinks. Why not magacaabi kartaa cabitaanada guud? You should be able to ask simple questions about food. Waa inaad weydiin kartaa su'aalaha fudfudud ku saabsan cuntooyinka. Simple waa fudayd, questions waa su'aalo, food waa cunto. Ask waa in lagu ask. To ask waxa weeyaan weydiin weeyaan. To ask. Okay, let's keep going. Okay, waxaanu ku bilaabaynaa roodhi. Roodhida Englishta waxaa lagu yahaa bread. Intan waxa la yahaa baa loogu dhawaaqaa. Ayaa loogu dhawaaqaa. Ayaa loogu dhawaaqaa. Waxa la dana xadoonaysaa bread. Roodhi ama rooti marba saa u taqaanaa bread. Rice waa bariis. Rice, bariis. Chicken, digaag. Fish, kalluun. Okay, bread, roodhi, rice, bariis, chicken, digaag, fish, kalluun. waa inaad ku celcelisaa sidaad ereyadan si saxda loogu dhawaaqo u fahanto ama u barato macnahoodana aad u fahanto. Okay, egg waa ukun. Salad waa saladkii caadiga. halkan af Soomaaliga dhiibaa ka maqan salad ama salad baa af Soomaaliga lagu yiraahdaa. Salad English waxa lagu yiraahdaa salad. Cheese farmaajo. Saasa ku xasuusanaysaa baan u malaynayaa af Talyaaniga horta farmaajo lagu yahay. afkeena inagu dhaqan ahaan ereyga cheese ka aad uma isticmaalo, laakiin adigu cheese ku waxa weeye waa subag loo aado la fariisiyay. Cheese. Milk caano. Apple tufaax. Banana muus. Orange liin macaan. Mango cambe. What is this? This is an apple. Kani waa tufaax. Drinks waxaanu ka hadlaynaa cabitaanada. Drinks markaynu niraahno waxa soo galaya biyihii, waxa soo galaya shaahi, waxa soo galaya kafeegi, waxa soo galaya juice. casiir bay dadka qaar yaqaan laakiin anu sharaab baan u aqaanaa. Okay, water biyo. Tea shaah. Coffee qaxwe ama kafee bay dadka qaar yiraahdaan. Juice sharaab ama casiir. Juice sharaab ayaa dadka badankooda u yaqaanaan. Okay, repeat 3 times. Water, tea, coffee, juice. ku celceli saad ugu dhawaaqdo markaa marbaynu guud maraynaa. Water, tea, coffee, juice. markastoo aad aragto eeda iyo ida iyo eidaas badanka waxay noqdaan t. markastaad double aragto, double ida coffee double waa ku dambaysa soo maaha. markastaad double aragto waxay noqdaan baa iyana soo kala noqdaan. Okay, water, tea, coffee, juice. markastaad aragto u iyo I had iyo jeer waxay sameeyaan the sound. deedna waxaa la odhanaysaa juice. Okay, useful sentences. Sentences yo ama hawraaro ama jumlado
استعمال أو wax caawinaya. I like. If you say I like, waxaad leedahay waan jecelahay. I like. See, I like rice, bariiskaan jecelahay. I like apples. And waxaan jecelahay appleska. I like apples. I like tea. Shahaan jecelahay. I like tea. My favorite food is baad oranaysa markaad doonaysaa taa cuntadan ugu jecelahay waxa weeye ama cuntadan jecelahay waxa weeye my favorite food is chicken. haddii aanad wax jecelayn waxaad oranaysaa I don't like coffee. kafeega ma jecli. I don't like fish. kalluunka ma jecli. grammar naxwe like. naxwaha like waxaad jeclaan weeyaan jeclaan. like waxaad isticmaashaa markaad wax jeceshay ayaa oranaysaa I like apples. I like rice. waxaa kuwan markaa waan jecelay baad leedahay. I don't like coffee. kafeega ma jecli. I don't like fish. markaa waxaad leedahay I like apples. tufaaxa waan jecelay. I like rice. bariiska waan jecelay. markaa waa positive waxa weeye wax togan. negative-na waa wax taban. waa diidma markaa negative. positive-na waa ogolaansho. I don't like coffee. kafeega ma jecli. I don't like fish. kalluunka ma jecli. Use don't with I, you, we, and they. When you use don't. When you use it with I, you, we, and they. If you use doesn't, then you use she, he, it. He doesn't like it. She doesn't like it. It doesn't like it. laakiin imaka wuxun baynu baranay don't. We are using don't. So use it with waxaad u isticmaalaysaa I iyo you iyo we iyo they. conversation wada hadal ama wada sheekaysi waxu dhex maraya wada hadalkani Aamina iyo Axmed. What is your favorite food? cuntadee baad jeceshay? Axmed baa odhanaya Aamina my favorite food is rice. cuntadan jecelay waa bariiska. What do you like to drink? Axmed baa odhanaya. Aamina weydiinaya. Aamina waxay odhanaysaa I like tea. tea baan jecelay. restaurant conversation. restaurant waa hodheel. dadka qaarna maqaaxi u yaqaanaan. wada hadalka maqaayadaha ama hodheelada. What would you like? maxaad jeclaan lahayd? waa adu markaa waiter waa qofka cuntada dadka siiya. dadka qaar waxay u yaqaanaan mudalab. qaarna waxay u yaqaanaan baan filayaa koonfurta wax kalea looga yaqaanaa. What would you like? maxaad jeclaan lahayd? I would like chicken and rice please. fadlan waxaan jeclaan lahaa chicken. waxaan jeclaan lahaa digaag iyo bariis. What would you like to drink? maxaad jeclaan lahayd inaad cabto? customerku waxa weeye waa adiga weeye markaad hodheelada tagtad wax ka iibsanaysa. customer. water please. fadlan biyo. water please. reading practice. read aloud. ku celcelinta reading. read aloud. kani waxa weeyaan waxaad odhanaysaa waad akhriyaysaa. read aloud macnaheedu waxa weeye sare u akhri. Hello, my name is Ahmed. I like rice and chicken. I eat fruit every day. I drink water and tea. Health food is good for me. Hello, salaam, my name is Ahmed. magacaygu waa Ahmed. I like rice and chicken. waxaan jecelay bariiska iyo digaaga. I eat fruit every day. maalin kasta fruit waa midho. maalin kasta midhaan cunaa. I drink water and tea. waxaan cabbaa biyo
iyo shaa. Health food is good for me. Health waa cuntada health waa caafimaad qabta. Health food cuntada caafimaadka qabta is good for me. Health food is good for me. Speak and practice. What's your favorite food? Marka waxaad u baahan tahay intaad videoga joojiso inaad ka jawaabto su'aalahan. What's your favorite food? What is your favorite fruit? What do you drink every day? Do you like tea? Do you like coffee? su'aalaha isweydii ka jawaab. Markastoo English waa dadaal. Markastoo aad isku dayda inaad ka jawaabto aad isku dayda inaad English ku hadasho English taada macal dhawaaqaaga hadaan fiicnayn ama aan English taada aad u fiicnayn way horumaraysaa. Marka dadaalka iyo kalsoonidu English ta qayb aad weyn bay ka yihiin. Okay, let us practice. What's this? What is this? Kan baynu markaa ka hadlaynaa. Waxaanu ka hadlaynaa kan. This is an apple. Kan waa tufaax. This is rice. This is rice. Kan waa bariis. This is tea. This is banana. waxaan this waxa loo isticmaalaa wax ku dhow oo shay kaliya casharkeeni aynu soo dhaafnay saasaynu ku sheegnay. Okay, let's move to our next slide. Quiz time. Okay, this is what? This is apple. This is coffee. This is chicken. Apple, coffee, chicken. Okay. Marka waxaad u baahanayd halkan inaad jawaabta saxda ka doorato. Apple waa tufaax, coffee na waa cafe, chicken na waa digaagii. Homework. Write 5 foods. Write 5 drinks. Write 5 sentences. Okay. For example, I like rice. I drink water. My favorite fruit is banana. Okay, food waxaynu nidhi waynu review waxa weeye muraajacayn. Waxaynu food cunto, drinks cabitaan, fruits midho. I like waan jecelay. I don't like ma jecli. Restaurant English ta hodheelada iyo meelaha wax laga cuno. Great job. Thank you so much. Like, share and subscribe. waxaan rajeynayaa casharada inaad halkan kala socon doontaan oo ka faa'iidi doontaan aad iyo aadna waa u mahadsantihiin.